Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkeena oo mar walba idin soo jeedinaya warbixino xiisad leh oo khuseeya wadida gaariga oo kuu sahlinaya helidda laysanka ama patantiga ee afka Swedishka lagu yiraahdo shortcut. maanta casharkeena wuxuu ka hadlayaa sida aad u galaysid isgoosyada wareegga leh ee afka Swedishka lagu yiraahdo rundel. isgoosyada wareegga leh waxaa jira noocyo kala duwan sida aad ku arki doonto casharkeena maanta. calaamooyinka isgoosyada wareegga leh waa calaamad blue oo wareeg ah oo ku wareegsan saddex falaaro oo cad ah. calaamada buluuga ah waxaa hoostiisa ku dhagan calaamad saddex geesle ah oo jaalle iyo guduud isku jira, waxayna u jeedaa dhanka hoose calaamada oo saddex geeseedka. calaamadaas oo afka Swedishka lagu yiraahdo failing split oo macnaheedu yahay gawaarida ku jira wareegga ayaa koowaad ah inay socdaan, taasoo macnaheedu yahay inaad ka istaagtaa ama ka joojisaa gaariga saddex geesoodka ee cadka ah oo dhulka ku sawiran agtiisa inta aadan galin wareegga, adigoo si fiican u eegaya gawaarida ku jira rundelka ama wareegga. haatan waxaa idin sharxaya casharkeena macallin Faisal oo u taagan mar walba inuu si fiican idin baro wadida gaariga. xaggiina ha iloowina subscribe, share, comment, like iyo gambaleelka si aad u heshid casharo cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. maanta waxaan rabay inaan cashir yar ka bixiyo rundel misikalaaqoon wareegga insha Allah. marka wareegga rundelka laba qaybood jirto. markan mid waxaa jira aan lahayn laba, mid waxaa jirta oo hal shortcut ama hal wada ah kan hadda u jeedin amal waaye. baabuurta bidixda imaanayso, baabuurta bidixda ka imaanayso ayaa ka leh ama baabuurta ku jirto kana u jeedin. marka midigta la fiirinayaa dooda vinkala la yiraahdaa saas. marka dadka meeshay dadka maraya waaye rundelka soo socdo waa kan oo labada shortcut lah ama labada wado marayso waaye. haddii tusaale ahaan lagu yiraahdo Bjorland hadda haddii lagu yiraahdo baabuurta bidixda ka imaanaysa iska fiirinaysaa. marka hore waa inaad soo samaysid wax maaragtaa diyaar inaad soo dhigtid planeering camal soo samaysatid. baabuurta u jeedin oo bidixda ah ayaa ka leh hadda u jeedid bidixda ka imaada ka istaagay. marka waxaad si fiirinaysaa meesha u socotid, midigtaada iska fiirinaysaa baabuur sikalka ama dadka meesha ay marayaan ka fiirinaysaa, kadib toos u baxaysaa. waa muhiim inaad blinkish ama fareejada aad soo shiditid meesha u socotid. marka hore waxaan ku dhahay intaadan soo galin sikalaaqoonka ama rundelka ama wareegga waqti hore waa inaad soo diyaarisid planeering la yiraahdaa. waa inaad ka soo kacdid gaaska, waa inaad meesha u socotid aad tustid hortaada inaad fiirisid waaye. halkan saa u jeediinba rundelka qaybta kala ka soo galay. haddii lagu dhaha bidix aad save wadadana u jeedid, marka bidix marka aadaysid waa inaad iska fiirisid sikalka ama dadka meesha ay marayaan. waa inaad waqti hore aad ka soo ogaatid baabuurtan ku jirto gudaha ayaa ka leh. waa inaad soo ogaatid marka hore xawaarahaada maartaa soo dhintid saa ku galaysid aad fiirisid. saa u jeediinba waa kaasa baabuurta halkaas ka imaanayso midigta way ka istaagayaan. hadda bidix ayaa u soconaa. halkaa markaad joogtid baabuurta halkaana iska eegaysaa, haadka eegaysaa baabuurka midigtaada fiirinaysaa. waxa midigta saasa u fiirinaysaa, waxaa shidinaysaa fareejada, waa sii baxaysaa. waxaan ku dhahay marka bidix u socotid rundelka waa inaad marka hore soo diyaarisid xawaarahaada dhintid. gudaha markaa u soo gashid rundelka ama wareegga markaa gudaha u soo gashid aad badalanaysid wadada. markaa badalanaysid waa inaad fiirisid maraayada haadka midigtaada saa u jeedkan camal fiirinaysaa. kadib waxaad fiirinaysaa garabkaaga fiirinaysaa oo la yiraahdo dooda vinkel.
sababta loo fiirinayo waxay tahay khatarta halkay ka imaanaysa taas oo marka haddii rundeelka mise isgoyska maxaa baalka rundeelka si kala khuunka haddii lagu dhaho iyo wareega isla meesha waaye haddii lagu dhaho toos u qaado saa u jeedid bakhiltigan ama tabeeladan kora arkaysid centrum waaye marka baabuurta bidaxda ka imaanayso ayaa kaale inaad ka istaagtid waa muhiim baabuurtan bidaxda ka imaanaysa inaad ka istaagtid waaye aad iska fiirisid saa u jeedidba wadada hoos u jeedid marka waxaa waaye laba shortfert mise laba wado waaye tan midig waa inaad iska fiirisid marka sikalka ama meeshay dadka marayaan waa ina waqti aad xawaarahaada soo ogaatid baabuurta ka horeysana fiirisid la socotid macnaheedu xawaaraha